بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او انكسن اخيارta qiimaha badan meel kasto aad joogtaan salaam allah alaykum waa inqilaabkii dawladda Soomaaliya oo militarigu inqilaabay sanadii 1969 kadib dilkii madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake hadaba qormadan oo aad u xiiso leh waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah inqilaabkii 22 Oktoobar sanadii 1969 maxaa ahaa taleefanka digniinta ahaa ee ku soo dhacay ra'iisul wasaare Cigaal iyo ciidii la fadhiday maxay ahayd heestii midhaheeda laga dhaxelay magaca loogu wanqalay iskartii dalka qabsaday maxaa waa hadalkii u dambeeyay ee dhaxmaray Cigaal iyo Maxamed Siyaad Barre maxaa ahaa askarigii 22 ka sano hayay dollarkii jeebka Cigaal laga saaray hadaba ku soo dhawaada qormadan oo aynu kaga jawaabi doono su'aalahaas habeenkii inqilaabka waa qalinkii Cali Mahad Yuusuf iyo tabintii Xasan Mawlid Maxamed waxay ahayd ayaan si weyn loogu maamuuso guud ahaan dalka Soomaaliya tamaashaadka iyo dabaaldegyada loo sameeyana waxa ku bixi jiray dhaqaale xad dhaaf ah xukuumadda militarigu waxay u aqoonsatay munaasabada ugu qaalisan dhammaanba maalmaha kala duwan ee xusuusta leh hal abuurka iyo hoobaladu waxay sameeyeen kun heesood oo ayaantan lagu amaanayo sida badan ragga midhaha suugaanta alufay waxa lagu abaalmarin jiray bilado iyo sharaf lagu tilmaamayo inay yihiin halyeeye qaran waxa isweydiin leh maxay ahayd sumada gaarka ee ay sidatay maalinta ka magac weyn dhammaanba munaasabadaha qaranka hadaba xilli ay goorsheegtu ku dhowdahay 12 habeenimo daqiiqaduhuna u sii gurmayaan 22 bishii Oktoobar sanadkuna yahay sanadii 1969 ayaa taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye gaas Maxamed Siyaad Barre oo u soo galay ra'iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal kadibna intuu salaan ciidan isula taagay ku yiri koomande waxaan kula socodsiinayaa in ammaanka magaalada ay caawa ka hawlgalayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waad ogtahay in boolisku siday madaxweynaha u dileynba aan aad uga walaacsanahay shaqadooda waxa uu hadalkii u dambeeyay ee taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeye gaas Maxamed Siyaad Barre oo ku yiraahdo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ra'iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Soomaaliya oo saacada hoygiisa ku sugnaa balse intaanu ka dhaqaaqin ayaa taleefan miiska Cigaal hortiisa yaalay soo dhacay waxaana loo sheegay inuu jiro dhaqdhaqaaq ciidan xaaladuna u egtahay afgambi ninkii taleefanka ku hadlayay waxa uu weydiiyay halka uu ka og yahay taliyaha ciidanka hase ahaatee ra'iisul wasaare Cigaal arinta wax weyn kama soo qaadin waxaana uu celiyay cidii uu waramaysay in taliyuhu hadda uu la joogo isagoo ka warqabin dhagarta loo maleegayo iyo halka arin marayso ayuu taleefankii dhigay daqiiqadaha waxa uu aad uga fikirayay dood ka taagneyd ninkii la doonayay inuu bedelo madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake oo 15 bishii tobnaad sanadii 1969 lagu dilay magaalada Laascaanood oo safar shaqo u joogay mudanayaasha baarlamaankuna si weyn ayay ugu qaybsanaayeen waxaana loo ballamay in subaxnimada uu dhaco foodkii kama dambaysta ahaa ee lagu dooranayay madaxweynaha Generaal Maxamed Siyaad Barre oo saacada warka uu siinayay ra'iisul wasaare Cigaal waxa saraakiisha kale ee kula jiray inqilaabku dhaqaajiyeen ciidankii militariga waxaana isku xeereen badiba xarumihii muhiimka ah ee dawladda labada sarkaale hawsha fulinayay waxay kala ahaayeen taliyihii hoggaanka hawlgelinta wasaaradda gaashaandhigga Generaal Salaad Gabayre Kadiye oo lagu tilmaamay jiray in aad u dhiiran iyo sidoo kale taliyihii ciidanka cirka duuliye Corneyl Cali Mataan Xaashi intaanu waagu baryin ayaa hawshaas si fiican loogu guuleystay iyadoo kalendarka taariikhdu ku buuxo 22 Oktoobar sanadda 1969 sida qoraaga sheekadan uu sheegay Cali Mahad Yuusuf xaqada sheekadan oo markii ugu horeysay aan ka akhristay qoraal gacanta lagu qoray oo kamid ahaa xusuus dhowrkii Maxamed Siyaad Barre sanadii 1996
wargeyska Jamhuuriya oo qoraaga sheekadu ka tirsanaa ayuu keenay nin lagu magacaabi jiray Geni kana mid ahaa howlwadeennada kaydka qoraalada madaxtooyada allaha u naxariistee Siciid Cali Giir oo muddo dheer ka shaqeyn jiray madaxtooyada Muqdisho ayaa cadeeyay farta qoraalkaasi inay tahay tii Maxamed Siyaad Barre inkastoo aan qoraalka la baahin waraaqihii dhacdadan ku qornaayeenna lagu celiyay ninkii keenay sida uu sheegay qoraaga sheekadu waxaanse mar kale ku arkay sheekadan ayuu yiri buugga sababihii burburka Soomaaliya ee uu qoray Cabdiqaadir Oromo page-kiisa 206 inkastoo ay wax yar ku kala duwanaayeen allaha u naxariistay Maxamed Axmed Qude oo ka tirsanaa farsamayaqaanadii ilaacada Radio Muqdisho ayaa sanadkii 1986 ayaa uga sheekeeyay qoraaga qormadan Cali Mahad Yuusuf inuu habeenkaasi 22 Oktoobar uu lahaa shaqada habeenka ilaacada ama shift night-ka waxaanu farsamayaqaan Qude sheegay in saqdi dhexe ay dhismaha xarunta ilaacada la wareegeen ciidan uu watay Corneyl Maxamed Cumar Jees oo habeenka darajadiisu ahayd kabtan sanadka 1986 wasiirka warfaafinta ahaa markuu waagu dilaacayna waxa dadweynuhu indhaha ku kala qaadeen jawi sidii hore ka duwan ciidan si aad ah u hubaysan oo wata gaadiidka gaashaaman ayaa jidadka iyo xarumaha dawladda la soo dhoobay markuu waagu dilaacayna waxa dadweynuhu indhaha ku kala qaadeen jawi sidii hore ka duwan ciidan si aad u hubaysan oo wata gaadiidka gaashaaman ayaa jidadka iyo xarumaha dawladda la soo dhoobay saraakiisha xukunka la wareegtay oo ka koobnay 25 xubnood waa xaruntoodu ahay saldhigga ciidanka cirka ee Afisione isla subaxnimadii 22 Oktoobar ilaacada Radio Muqdisho waxa laga baahiyay amara adag oo ay ka mid ahaayeen in 3 qof wax ka badan dadku isu iman karin sidoo kalena waxa la soo saaray amara bandawa oo ka bilaabmay 4 galabnimo ilaa 10 subaxnimo garoomada diyaaradaha iyo dhammaan dekedaha dalka ayaa shaqadoodii la joojiyay ra'iisul wasaare Cigaal iyo xubno badan oo kamid ah dawladdiisana waxa loo taxaabay xabsiga inkastoo talaabooyinka askartu qaadeen u muuqdeen cabsi gelin si aan shacabku uga hor iman balse su'aasha ugu mudan in la isweydiinayo waxa ay ahayd qofka uu yahay sarkaalka mas'uulka ka ah ciidamada inqilaabka ku kacay waxa kaloo bilowgiiba inqilaabka ku adkaaday raggii talada xoog kula wareegay magacay bulshada la hor iman lahaayeen waxaase la yaab ahayd markii hees la sameeyay 22 Oktoobar sanadii 1969 waana maalintii labaad ee inqilaabka isla ayaantaana la duubay toos ilaacada looga sii daayay midhaheedana ka mid ahaayeen tawradeena dhalatay 22 Oktoobar waxaana halkaa laga helay isimka Tawrad oo ahaa magac Carbeed markii ugu horeysana ay isticmaaleen saraakiisha militariga ee dalka Masar ee talada kala wareegay boqorkii wadanka Masar Boqor Faaruq 23 bishii 7 sanadii 1952 heestan oo midhaheedii iyo laxankeedaba uu iska lahaa abwaan Siciid Maxamed Cali Siciid Xarawo oo haatan ku nool magaalada Muqdisho xilliga uu dhacay afgambigu xaaladda dalka ka jirtay waxay ahayd mid aad u liidata kala dambeynta iyo sharciga dawliga ayaa ahaa mid si weyn u daciifay waxaana awood yeelatay qabyaaladda heer la gaaray in warbaahinta dawladdu sheegto magacyada laba qabiil oo dagaal ku dhex maray bartamaha magaalada caasimadda ee Muqdisho dhacdooyinka xusuusta dadweynaha galayna waxa ka mid ahaa dhulkii loo qorsheeyay in xabaasha madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke laga qodo inuu sheegtay nin shacaba xaaladuna ka fursan weyday in lacag lagu sasabo ninkaas markii in muddo awoodda gacantu ugu jirtay saraakiisha inqilaabka dhigay waxay soo saareen qoraal ay ku sheegayaan warqadda koobaad ee axdiga kacaanka oo ka koobnayd 13 qodob oo meesha ka saartay dastuurkii dalka ee la sameeyay sanadii 1960 maamulkii askartu waxa uu bilowgiiba ku guuleystay hirgelinta mashaariic door ah oo si weyn shacabku u soo dhaweeyeen sanad kadib oo ku buuxday dabayaaqadii sanadii 1970 ayaa lagu dhawaaqay in Saraakiisha Maxamed Siyaad Barre yahay madaxweynaha golaha sare ee kacaanka inkastoo marka la eego aqoonta maadiga iyo diintaba uu aad ugu hooseeyay Maxamed Siyaad Barre waxaase uu lahaa karti ah u suurtagelisay in raggii ay inqilaabka wada dhigeen uu ka saxeexo sharci dhigaya cidii ka hor timaada afkaarta kacaanka ciqaab dil ah la mariyo
shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee sharciga lagu fuliyana waxaa ka mid ahaa Genaraal Maxamed Caynaashe Guuleed, Genaraal Salaad Gabayre Kediye iyo Korneyl Cabdiqaadir Dheel Xuseen oo kula jiray inqilaabkii dawladdii rayidka ahayd ee lagu afgambiyay. waxaa la toogtay bishii Julaay sanadii 1972. tallaabadaasna waxay sababtay in la waayo cid ku dhacda wax ka sheegista Tawradda, gardaadintii nidaamkaasina kumaan heesooda amaana ayaa hal abuurka Soomaalidu ku sifeeyay madaxdii dalka kula wareegtay xoogga iyo hoggaankoodii. xaqiiq ahaanse shakhsiyadda Maxamed Siyaad Barre waxa uu ahaa qof aan caadi loo fasiran karin, kana koobnaa laba nooc oo aad u kala fog. sida la sheegay markii uu awoodda lagala wareegay sanadii 1991 qoraallo uu sameeyay wuxuu garowsaday qaladaad badan oo uu sameeyay, sida heshiiskii uu la galay Itoobiya, taladii uu ka diiday raggii uu soo jeediyay inuu SLM la heshiiyo. dhinaca kalena markii xabsiga la dhigay ra'iisul wasaare Cigaal waxaa jirtay lacag dhowr kun oo dollar ahayd oo jeebkiisa uu ka saaray askari ka tirsanaa ciidanka jeelka, balse ninka lacagta qaaday waxa uu dib ugu keenay Cigaal sanadii 1991 oo ay dhacday xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre. askarigu waxa uu sheegay inuu aad uga cabsanayay haddii uu lacagta celin lahaa intii dawladdu kacaan ku jirtay inuu warkeedu bixi lahaa oo dib ugu iman lahayd. sida uu sheegay qoraaga sheekadan Cali Mahad Yuusuf oo yiri jiritaanka sheekadan oo ay xaqiijiyeen dhowr qof oo Allah u naxariistee marxuum Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal uga waramay muddadii ay dhacday xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre oo uu ka mid ahaa Allah u naxariistee Xasan Xaaji Maxamuud Warsame Xasan Garweyne oo muddada ahaa gudoomiyaha gobolka iyo duqii magaalada Berbera. waa qalinkii Cali Mahad Yuusuf iyo tabintii Xasan Mawlid Maxamed.